tartan kubadda cagta ah oo dhex marayay 15 kooxood oo ka tirsan maxaabiista xabsiga dhexe ee Xamar ayaa lagu qabtay gudaha xabsigaasi dhexe waxaana ka qayb galay saraakiil ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale warbixin warkan ku saabsan waxa inoo haya wariyaheena Xasan Yuusuf Cali tartankan kubadda cagta ee lagu soo gunaanada iyo xuska iyo dabaaldega asaaska ciidanka asluubta Soomaaliya ayaa waxa ka qayb galay saraakiisha ciidanka asluubta Soomaaliya mas'uuliyiin ka socotay xeer ilaalinta qaranka iyo garsoorka taasoo ay ka qayb galayeen ilaa iyo 15 kooxood oo kamid ah maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe ee Xamar ayaa maanta lagu qabtay gudaha xabsigaasi waran waxa saxaafadda la hadlay markii uu soo ilaaday tartankaasi Axmed Wali oo ah ciyaaryahanadii u soo ciyaaray kooxda Genyo isla markaana ahaa garsoorihii tartankaasi kubadda cagta ee loo qabtay maxaabiista ku jirta xabsigaasi isna uu ka mid yahay ayaa sharaxaad ka bixiyay qaabka tartanku u socday iyo tirada kooxaha ka qayb galayay tartankaasi anigoo ah macna Axmed Hiiloole oo ah ciyaartooyda hore Genyo ciyaari jirtay waxaan xabsiga dhexe ku qabanay koobkaas oo maanta finaal ah waxaana badiyay number 4 Centrale qolka afaraad number 2 foreign ayan number 2 laga badiyay for Centrale badiyeen taliyaha xabsiga dhexe ee Xamar gaashaanla dhexe Maxamed Sheekh Cumar ayaa isna sidoo kale dhankiisa si kooban uga hadlay tartankaasi loo soo gabagabeeyay maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe Xamar maantay waxa gaban noo ahaa ciyaar 15 kooxood ah oo noo socotay maalmahan oo dhan maanta ayay noo soo gabagabowday waxaana badiyay kooxda afaraad ciyaartaas oo ugu tala galanay munaasabadda 45 guurada ciidanka asluubta iyo soo dhaweynta wasiirka cadaaladda taliye ku-xigeenka ciidanka asluubta Soomaaliya gaashaanla sare Cabdikariin Cali Afrax ayaa mahadnaq ballaaran u soo jeediyay dhammaan kooxihii ka qayb galay tartankaasi kubadda cagta ee loogu dabaaldegayay xuska asaaska ciidanka asluubta Soomaaliya ee maanta lagu soo gabagabeeyay gudaha xabsiga dhexe Xamar isla markaana kula dardaarmay inay sii wadaan kooxaha maxaabiista ee ku jira xabsiga dhexe dadaalkooda dhanka kubadda marka ugu horeysa waxaan u hambalyeeynaa kooxda guuleysatay ciyaarta macnaheeda hadalka tirada looma baahna waxa sheegay ujeedkan ka lahayn taliyaha xabsiga waxaan u hambalyeeynaa kooxda afaraad ee guuleysatay kooxda labaad oo laga guuleystan waa u hambalyeynaa iyagoo bari badi doonaan ugu dambeyntii taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya General Xuseen Xasan Cusmaan ayaa ka warbixiyay ujeedada ay tartanka u qabteen inay tahay gunaanadka xuska iyo dabaaldega asaaska ciidanka asluubta Soomaaliya koobkan waxa weeyaan waa koobkii munaasabadii 45aad ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaan ku soo gabagabeynay horta runtii waxa weeyaan anka qorshahayna dhalinyarada meesha markay ka baxayso nin kasto baxayo asoo wax garanay inuu baxo asigoo Soomaali ah inuu baxo haddii wax daran ku dhex jiray wixii darnaa inuu ka dhex baxo anaga waxaan u talagalnay maskax nadiif ah oo Soomaalinimo inay kala baxaan meeshan maxaa la yiraahdaa banoonigan waxa weeyaan ma joojinayno waxa weeyaan bil kasta waxa weeyaan koob ayaan rabnaa in maaragtay aan siino waa tartankii ugu horeeyay oo noocan oo kale loo qabto maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe Xamar Xasan Yuusuf Cali telefishinka qaranka Soomaaliyeed